soddoniyo saddex arday oo isugu jira gabdho iyo wiilal oo kamid ah da'yarta dugsiga Daaro u maray xifdinta Quraanka Kariimka iyo waxbarashada asaasiga ayaa maanta xaflad shahaado lagu guddoonsiinayay lagu qabtay magaalada Baargaal ee gobolka Gaardafuu kadib markii ay Quraanka Kariimka xifdiyeen. munaasabada qalinjabinta oo ka dhacday dhismaha dugsiga Daaro Umar ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo horkacayay gudoomiyaha degmada Baargaal mudane Abuukar Indhacade oqaal waxgarad aqoon-yahano ganacsato waalidiinta da'yarta iyo dadweyne aad u fara badan oo muddooyinkan sugayay munaasabadan. ugu horeyntii waxaa xafladda lagu daafuray aayado quraan ah oo akhriyay arday ka mid ah ardayda dugsiga Daaro Umar. intaasi kadib waxaa hadalka furay maamulaha dugsiga Daaro Umar Sheekh Cawli Jaabac Muuse oo marka hore soo dhaweeyay martidii xafladda ka soo qayb galaysay. waxaa salaan sharaf leh oo maamuus leh mudan marti sharafka nagala soo qayb gashay xafladdan oo hogaaminayo gudoomiyaha degmada, nabadoonnada, dhalinyarada, macallimiinta nooc kasta yihiin, haweenka, gruubka xafladda soo abaabulay oo si gaar ah u muusan ardayda dhammaanteed خاصة كوا قلن جبينا يا ما أنت شهادة قاضنا يا maamulaha dugsiga Daaro Umar ayaa faahfaahin ka bixiyay dufcadan sanadka ka qalin jabinaysa oo ah dufcadii tobnaad ee ka qalin jabinaysa dugsiga Daaro Umar marxaladii ay soo mareen ilaa ay ku guuleysteen xifdinta Quraanka Kariimka. maamulaha ayaa hoosta ka xariiqay in muhiimadda xafladdu tahay si loogu dhiirigelin lahaa ardayda inta dhiman in ay ku daydaan ardaydan maanta la abaalmarinayo. xafladan ayaa waxaa sidoo kale hadallo qiimo leh ka jeediyay waalidiin xubno ka mid ah guddiga waxbarashada, culimo iyo marti sharaf kale oo badan kuwaasi oo dhammaantood u hambaliyay ardayda xifdisay kalaamka Alle oo ah wax la barto waxa ugu khayrka badan. bogaadin iyo sharaf iyo ammaan aan la soo koobi karin uga soo gudbinaya dhammaan hooyooyinkii soo agaasimay xafladatan suurto geliyey bogcaddii aanu ogeyn sida ay ahayd oo lagu soconayo in ay maanta noocan u ekaato, inay sharaftaan yeelato aad iyo aad baan ugu ammaanayaa. waxaa maanta sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo dafcaddii toddoba dafcadood tanaa ii ah. ilaahigay baa mahadle ilaahay ii suurto geliyey inaan toddobadaa dafcadood soo taagnaado. dafcadahaas oo dhammaystay kitaabka qur'aanka kariimka ah xifdintiisa. wax lagu tartamo, wax la isu sheego, wax la isugu yimaado waa waxa ugu qiimaha iyo qaayaha badan. waa dastuurkeenna, waa nolosheenna, waa kan ina hagaya ayay dafcadahaasi dhammeeyeen. dufcada sanadka ka qalin jabisay xifdinta Quraanka Kariimka dugsiga Daaro Umar waxaa tiradoodu dhan tahay 33 arday oo isugu jira 18 wiil iyo 17 gabdhood. ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa ardayda qalin jabisay la guddoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino kale.